magacaygu waa Xasan Saleebaan Dhuxul Laab Saalax waxaan jecelahay inaan qof kasta minankiisa meeshiisa iyo madashiisa ku salaamo dadkay daawanaya inta ka sako su'aalo waxa jiray baraha bulshada igu soo weydiiseen kuwaasi oo la xiriiray xanuunka COVID-19 anigu saawagtiin dhakhtar meehi laakiin su'aalihiinu waxay u badnaayeen wacyigelinta sida loogu hortagi karo intii galashahan aqliyadaydu faraso waxaan isleeyahay waa ka jawaabi kartaa dadkii tirada badnaa halkooga mid kasta laguma salaami karo mid kastaba laguma xusi karo mid kastaba su'aashiisa lama soo qaadan karo balse waxaan ka soo qaatay dhowr qof oo kala jooga magaalooyinka Jigjiga Muqdisho Beledweyne Baydhabo Hargeysa Burco Kampala Kismaayo Gabiley Salax Dheer iyo Jabuuti gaar baan inta u salaamaya xaadsamaan ku horeynayaa in laasxanood joogto su'aasha koowaad ay weydiisay xaadsan waxay leedahay wax la yiraahdo Xaadsan Cabdi Ismaaciil qofka cudurku ku dhaco dadka ku ceebsanaya talada uu haysa maxay tahay tiri xaadsan وسؤال مهم الله عذر كي عافمات كهايه روحو عسكري عذر كلنا عدبن كدا عقددي على الحمدو وكان كعيسي عنان ملهه قف كاستاين وقف كله حنوسنيا احترامه كو احترامه دبته ومهم اللي سكون حريستنا وي في عنته صالح علي جامع oo Beledweyne jooga waxaan leeyahay Saalax buundada la ilaaliyo igu salaan wuxuu weydiiyay su'aasha sida loogu hortagi karaa waxa loogu hortagi karaa qaadashada talooyinka caafimaad ee dhakhaatiirtu nasiiyeen ay ka mid yihiin in afsaabka la xidho la faraxasho la kala fogaado waxyaabahaasi un baa laga hortagi karaa aan islaalino ilaahay baana wax ilaaliya aan ku sii socdo maxamed maraacin magaciisa labaad waxa uu joogaa Jigjiga waxa uu leeyahay aragti nooceeya ayaad ka haysataa waxaan ka haystaa maxamed oo inuu cudurku yahay dilaa waxaan ka haystaa inuu dadkii kala yirdiyay kala fogeeyay dunidii kala xiray dhaqaalahaan saameyn dadkii u geystay nafad badan khaarajiyay cabsi badan dadka ku beeray warwar ku abuuray inagu si laakiin dad islaam ah oo diin leh oo iimaan leh oo qadarka iyo qoraalka aqbalaya ayaynu nahay marka waxaan aaminsanahay in uu cudurku yahay mushkilad iyo aafo marka laga reebo gabowga iyo geerida wax kastaba daweyleeyay kulli wala iska heli doonaa ومر بيتي بيدو باه واحد dadku qarsadaan marba eediska liftigiisu ahaa wax dadku ka argagaxaan kulina khatiirta iyo culimada saynisku dawo keenay doonaan ama uu heli doonaan waxaan ka aaminsanahay inuu kamid yahay mid kamid ah mushkiladihii ugu waaweynaa ee sanadihii ugu dambeeyay dunida soo maray laba su'aalood oo is saaran ninka la yiraahdo Adnaan عويل أيها وحليه بهذا السؤال تسلي وعيقلين COVID-19 وقا قيب قادنايا وحكالو سؤال لماذا وقودو يدنين ويدين سفاد المقاسم وله محايا هالعبوركو وقا قيب قادن وايان مسكا قيب قاتين إن بدن ويسوغان يهانا ذا كميذي وحان أورانكرا ويكا قيب قاتين وعيقلين COVID-19 إيوه وعيقلين مها كالاه إعرمها برشده haddaan isku imaado kullay waxa laga yaabaa in aan tixyar oo kooban idin mariyo oo kaga hadlayo COVID-19 oo taasiba wacyigelinta aad doonaysaan inay halabuur ka qayb qaataan ka mid noqon doonta wadamo xoog iyo xadaarad lahaa barkood xilligani ka dhaxulo xanuun xadku ka baxo xadku goosto xanuunku hadeer xuduud ma lahe guryaha isku xidha halka ku jiray haddaad xumadiyo qof u ciisigo cunuhu ku xidhmo dareento xanuun xarunta dhakhtarada xiriir la samee
afkana yar xidho dadkaaga xurmee kuwii xidigaha ka xal warramee xogaha dayaxana korxaadinayee xilkii dunidani xaynkooda gashay awood isku xeeray xeerar la'aan xaqlaha dunida xigmada tusayee guryaha isku xidha halkaa ku jireen kala fogaada kala durqa oo weliba faraxasha hadaynu su-aalihii kusii soconno su-aasha lixaad ayaan u gelayaa waxay tahay waxa weeye ninka odayga ah ee jooga magaalada Kismaayo wuxuu leeyahay waxa la yiraahdaa Cumar Gaabow adigiyo dadka reer Kismaayo marka koowada waan salaamaya saaxiibkay Cabdirasaaq Tooshman isagana salaamaya waxa kale oo aan salaamaya dadka daawanaya Cumar Gaabo wuxuu leeyahay hadii ay bulshadu dhaga adeegto maxaa tala ah way wacyigelinta ka dhaga adeegto horta waaba wacyigeline dadka waa abuur ilaahay sameeyey ee abuuray ee dhiigga iyo dheecaanka iyo nafta iyo nolosha geliyay ayay ka hor yimaadaan caasiyaan oo badhna rumeeyaan badhna ka hor yimaadaan markaa qaadashadu in talada la qaataana waxay ku xidhan tahoon sida xagga ilaahay loogu dhaga nugul yahay iyo sida looga leexanayo siday dadku ugu kala qaybsan yihiin in bay qaadashada iyo inay talooyinka qaadan waayaan oo la mid tahay laakiin intaa waa la dadaalaya waa la wadaya si way jiraan idaacado badan iyo social media intaa wacyigelintu way ka socotaa wacyigelintuna aday wacyigaaga iyo noloshaada wacnaynaysaa oo hagaajinaysaa qofka ku wacyigelinaya isaga tiisa waba ku sheegaya oo ku faraya oo ku tilmaamaya marka ogow in adiga wax lagu sheegayo waxa lagu sheegay inaad qaadato isku day ilaahayna kugu anfacdo haddaanu imaado su-aasha kale ee halkan inoogu qoran Cabdirasaaq Cabdi Isxaaq oo jooga Baydhabo Janaayo wuxuu leeyahay waxaan ku weydiin lahaa caabuqan COVID-19 ee dunida saameynta ballaaran ku yeeshay Soomaalidu siduu u saameeyay dadka Soomaalida ahina cabsi intee leeg bay ka qabaan su-aashii hore bay hoos imanaysaa way muuqataa way caddahay waynu ognahay inaan Soomaalidu xanuunkan aanay argagax fara badan iyo baqdin iyo taxadir midnaba ka qabin ka qabo man annaguna idin leenahay way islaaliya ilaahay baa wax ilaaliye Anas Cabdirasaaq wuxuu leeyahay in qofka xanuunka qaba dadka laga dhex takooro miyaanay u keenayn uqdad iyo inuu qofku naftiisa wax badan isweydiiyo mayna in ummadda laga dhex qabto qofku ku dhaco oo la daweeyo oo la baxnaaniyo si ana naftiisa iyo nafo kale u sarayn in la takooraa waa muhiim way xanuunkii baa lagu kala qaadaya taabashada iyo isku soo dhawaanshaha iyo salaamida marka horeba waa tan idin leeyahay sheedin iska salaamo shafka haysa saarina muhibbo ali oo xerada qaxootiga ee dhadha alla maxaan BBC-da ka maqlay xerada qaxootiga ee dhadha dadka jooga waan salaamaya su-aashii i weydiinaysa waa su-aashii hore bay la xidhiidhayo sidee uqdada looga saari karaa dadka bay yadna leedahay waxaan leeyahay uqdadu kulleyba maaha mid rabaani oo qofka ku abuuran marka laga hadlayo cudurkan ee waa mid xanuunkan iyo xaaladan ay dadku ku takooreen uqdadu ku beeray tii qofna qadarka alle horta ma beeniyo marka very simple taas way fududahay haddaan si guud u soo noqdo oo maxay ahayd u imaado su'aalihii
su-aasha ah magacaygu waa xasan maxamed cali buu yidhi ku nool dalka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala waxaan filayaa in Kasiinyo uu ninka odayga hay joogo dadka reer Kampala aad baan u salaamayaa Soomaalida xiriir lockdown-kii annaga u saameeyay waxaan ku jirnaa inkastoo hadda la qafiifiyay su-aashayduna waxay tahay buu leeyahay wadada caalamka intooda kala dadaal ayay ugu jiraan sidii ay u xakameyn lahaayeen uga foojignaan lahaayeen xanuunkan balse Soomaalidu weli kuma baraarugsana hayo Soomaalidu waba Soomaali oo inta badan waxa la sheegaa inay bulshooyinka iska dhagaadag ee dhayalsiga aanka ku ah yihiin marka laga hadlayo talooyinka caafimaad dhakhtarradu waxay sheegaan in Soomaalidu had iyo jeer aanay aad uga taxadirin inay qaataan talooyinka caafimaad isla mar ahaantana raacaan tusaalooyinka iyo tilmaamaha guud ee dhakhaatiirtu u soo jeedinayaan inagu laakiin xaalad caafimaad iyo dhinaca dhakhtarka kama inaan eegin oo tala caafimaad ma bixin karno laakiin waxaynu bixinaynaa tala ku saabsan wacyigelin walaalaya waxa laga yaabaa anigu inaan maanta 40 jirahay ama aan ku dhowahay waxoogaa bay iga dhiman yihiin waxaan ka mid ahay dadka dunida guudkeeda jooga xanuunka COVID-19 saameeyay oo miyuu ugu dhacay wamayo allaba ima keeno laakiin sidii ii saameeyay dee anigii xaaskaygii iyo ciyaalkaygiiba una kala fogay iyaguna Ingiriiska ayuu lockdown-kii ugu dhacay oo ay ku xaniban yihiin aniguna Hargeysaan joogaa marka adigana sidaasi ka duwan iyo si lamaduba ku saameeyo mid kamid ah qoyskaagu buu ku dhacay qofad garanayso buu ku dhacay in badan oo inaga mid ah u dhintay han isku naxariisano isku tudhno iswaanino dhamaanteena inagoo qaadanana talooyinka caafimaad aynu ku baraarugsanaano inaynu yeelo wax kasto oo aan nafteena ku badbaadinayno mana badbaadi karno haddaan Ilaahay ina badbaadin su'aalihii intaasaan ku soo koobayaa